qofka daalimka oo dadka gardaraysta oo dulmiyaana asaguna cuquubo suga weeyaan waxa ka dhacday dhinacan koonfurta dhulkan wixii afgooyiya ka shisheeya oo beeraleyda ah qiso dadkii xogogaalka ahaa ay ii sheegeen waliba hal qof ka badan ayaa qisada ii sheegay muddo hore ayayna ahayd 95 meelahaas ku beegneed xilligii qaxa iyo dhibaatadu ay taagneed bay ahayd nin baa wuxuu ku habsaday nin dhulkiis beerihiis iska fashay ninkii baa soo laabtay dhulka lahaa oo qax ka soo laabtay markuu yimid buu yiri beertaan ana iska leh kii daalimka wixii waxba anugu kuuma hayo dhulkan ana iska leh mana iman karti magaaladii tuuladii beeruhu ku yaaleen buu tago dadkii buu la hadlo wuxuu garanayo hore buu la kulmo wuxuu yiri soo ma garanaysaan inaan hebel ahay beertayda soo ii garan maysaan ninkaan idinka ishayb wadaagtaane isgaranaysaan ninkaan igala hadla daalimka ah anuu meel aan aadayo meel aan u qaxayo bal dhulkayga inaan fashaan rabaa odayaashii waxay u tageen ninkii bay la hadleen inuu ninkaas beerta leeyahay oo ka cararay kuna soo laabtay uu doonayo in lagu wareejiyo beertiisa uu fasho waa diiday waan bay sameeyeen oo waxay yiraahdeen waa yahadee kala bar aan ka dhigno barna asaga si barna ha kaaga tanaasulaha ku daayo soo dhameeyo buu oo yimaadeen waxay yiraahdeen hadaa barka tanaasuleysid oo bar aad u deynaysi asaga adiga barka kale waa lagu deynayo waa nin baahan oo xoolihiisa u baahan inuu tabcada u baahan waa aqbalay markaas uu qaybtiisi beertay kiina daalimka ahana qaybtii kale u beertay waxa soo dhalato soo baxday qaybtii ninkii xaq lahaa si fiican bay u soo dhalatay waana u mira dhashay qaybtii kale markay soo baxday iska gubataba kii daalimka ahaa wuxuu yiri waxa ii muuqata ninkaan inuu isixray oo sixir uu ii maleegay oo beertaydu sida ay ku gubatay intuu yimid oo xabad soo qaato shan xabad ku dhiftay dil buu ugu dar xaqiisii buu qaatay dilna waa ugu dar markuu dilay ayuu yiri hal qaado baqtigiisa hal xabaab magaaladuna ka aad dadkii waa qaadi waayeen ninkii dhulkii waa laga rujin waayay sagii bay u tageen waxay ninkana waa qaadi weeyeen dhaqaajin laana soo laabto wuxuu yiri see u hadlaysaan see u qaadi weydeen ana idin la qaadaya keena markuu qabtay waa fududaadaba godkii markuu geeyay ayuu yiri soo dhiiba gudahan galayaade gudihii markuu galay oo saa u dhex istaagay oo meydkii saa u dhigay gudaha ayuu ku dhigay dhab oo qabsaday ninkii cabaad buu ku dhiftay wariga fujiyoy meydka iga fujiyoy dadkii markay arkeen ninkii daalimka ahaa oo qabrigii dhexdiisa u taagan oo dhawaaqaya meydkiina uu ku dhagan yahay ayay intay argagaxeen kulligood meesha ka cararay qoraxduna mar ay sii gaabanayso sii dhacaysay ahayd dadkii waa argagaxeen magaaladii bay iskugu tageen hal qof oo ku dhiirada inuu soo laabto waa laga waayay markii waagu bariyay ayaa la yiri meeshii aan fiirin waxa loogu yimid labadoodii oo meyd isla ah oo kii daalimka ahaa uu hooseeyo kii uu dilay oo madluumkaana uu koreeyo ciida lagu wada xabaalo lagu wartay عقوبة قفك ظالم كأ أحيانا وحي أقول إيمانا يسا أصغر نول أيو سلع لمنا هي مر مال كيسي جليسة مر عافمات كيسي جليسة مصائب كلا دوام باكون عايز أحد المشايخ باوحو كشكي قصة عجيب أهيد قصة داسي وحي أهيد هويني بعد لبطي habeen kasta nin ay qaraabo yihiin oo akhyaaraha oo culimo aha baa ruuyo ku arka qabrigeedii oo gubanahayo hoolac ka shidan yahay ayaa waxa ka dhaxyeeraya ayadii oo hoolcaysa oranaysa alxaliib 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 eragaas ku dhawaaqaysa iska cawdu billaystaan ninkaani faruhu ka qaaday dhowr sano markay ka soo wareegtay rooyadii habba ay ku soo laalaabanayso ayaa ninkii wuxuu go'aansaday arintan inuu baaro oo ay leedahay haweentan gubanayso qabriga ku gubanaysa oo rooyada ku arkahayo alxaliib alxaliib caanaha ku haysa qaraabadii buu u yimid dadkeedii wareystay gurigii buu yimid
qisadan waxaa la yidhi haddaa saa soo aragtay waa macruuf haweentan waxay haysay ilmo ay dhashay iyo ilmo ninkeedu dhalay oo ayadu aysan dhalin oo saqiiro ah bay haysay biilkaa loogu dhiibaa caanaha markay keento ilmaha aysan dhalinna koobka barkiis bay biyo ugu dartaa waa u baraxdaa kuwa ay dhashayna biyo uguma darto ayagoo aan biyo lahayn bay siisaa macruuf bay ahayd inay ilmaha saqiirka ah oo mas-uulka ay ka tahay oo biilka loogu wada dhibay qaarna caanaha ay biyo ugu darto qaarna waxa weeyaan ay ka daysa biyaha macruuf bay ku ahayd ereyga marka aad arkaysa alxaliib annagu intaan ka ognahay xogtiisu intaas weeye walaalayaal waxaan ogsoonnahay dadkii daalimiinta ahaa oo waddankan halaagay maanta xaggay ku dambeeyeen walidaalika nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas qofkii taa ka dulmiya toddobada dhul baa qoorta loo gelinahayaa saciid ibnu zayd saxaabigii la odhan jiray ayaa haweeney waxay ku qabsatay dhul arwaa la odhan jiray markaasay waxay tidhi deris bay ahaayeen dhulkan anaa iskale dhulkayga qayb ka midoo ku jira markay ku qabsatay baa ninkii madaxda ahaa wuxuu yidhi dadkan maxaa u dulminaysaa haweentan miskiintaa maxaad u dulminaysaa markaasuu wuxuu yidhi ma anoo nebi moxamed ka maqlay man dalama qiida shibrin min alardi tuwiqahu min 7 aradiin qofkii haltaa ka dulmiya 7 dhul baa qoorta loo gelinayaa anoo nebi moxamed ka maqlay miya iga suurtowdaa inaan dulmiyo oo xaqeeda aan qaato inta ay sheeganayso oo ay leedahay waa iga haystaa ayadu ha calaamadaysato ha qaadato markaasay intii ayadu ay rabta calaamadaysato tiri intaan anaa leh laba arrimood buu ku habaaray ilaahu wuxuu yidhi acmi basaraha ilaahu araggeeda tir oo indhaha ka tuur wajcal qabraha fii daariha qabrigeedana gurigeeda ilaahu ka dhig muddo ka bacdi way indhabeeshay indhihii baa ilaahay tiray ayadoo derbiga ku socoto saa u warwareegaysay ceel ka dhex qodnaa dhulkii ku dhex dhacday asagii baa qabri looga dhigay siduu u habaaray baa ilahay ku yidhi subxana wa tacaala qofka daalimka ah qofka uu dulminayo oo madluumka ah baryihiisa ilaahay waa aqbalaya wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaaatun laa turaddu dacwatuhum saddex qolo ilaahay baryahoodu ma celiyo waxaa ka mid ah wa dacwatu lmadluum qofka madluumka ah oo la dulmiyey baryihiisa ilaahay uu baryahayo habaarka uu qofkaa dulmiyey uu habaarayo tuxmalu cala alghamaam daruuraha ayaa lagu xambaaraa oo lagu qaadaa wa tuftaxu laha abwaabu asamaa samada irdaheeda ayaa loo furahayaa wayaquulu rabbu wacizatii laansurannaki walow bacda xiin ilaahay baa dhaaranaya o odhanaya cizigaygaan ku dhaartade waan kuu hiilinayaa oo kuu gargaarayaa walow bacda xiin wakhti kadibba ha ahaatee guul ayaad heli doontaa oo waa guulaysan doontaa qofka madluumka oo la dulmiyey hadduu habaaro qofka daalimka oo dulmiyey oo gacmaha kor u taago waxa weeyaan ilaahay waa ka aqbalayaa si gooniya ayaana ducadiisa loo aqbalaya oo loo maamuusaya